wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Kalsama TV waxaanu idin soo gudbin doonaa taliska difaaca Puntland oo markaasi sheegay in kooxda Daesh ay bedeshay tacticadii dagaal ee horey ay ugu howlgali jirtay xilli ay markaasi bilowday in nooc cusub ay u toogato ciidanka difaaca Puntland iyo xilliyo gaar ah sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib dagaalkii saaka ay kooxda al-shabaab kula wareegeen deegaanka Cali Gaduud inta guda galeen waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee soo booqatay subscribe-ka noo taabato muuqaalkana like saarto taasi waxay naga saacidaysaa in dad badan uu gaaro muuqaalkeena ciidanka difaaca Puntland ayaa waxa ay markaasi wadaan howlgal culus oo ay markaasi ku beegsanayaan goobaha ay ku sugan yihiin kooxda Daesh xilli howlgalka wajigiisii saddexaad uu haatan si dardar leh uga soconaya dhulka buuraleyda ah ee Calmiskaad afayeenka howlgalka argagixisada ee Daesh Maxamuud Faadhigo ayaa sheegay in Daesh ay bilaabeen in habeenkii ciidamada ay u adeegsadaan ookiyaalaha aragga habeennimo ee loo yaqaano night vision markaasi loo yaqaano night vision glasses iyo qorshaha iyo sidoo kale qoryaha shamsuutarada ah ee tiirada dheer ee toogashada lagu sameeyo awoodii Daesh habeen ayay ku soo hartay in ay ciidamada meelaha ka soo toogtaan waxayna ku tusinaysaa in ay iska soo markaasi baaba'ayaan ayuu yiri afayeenka haddaba ciidamada ayaa waxa markan ay la kulmayaan toogasho xilliyada habeenkiya maadaama kooxda Daesh ay bedeshay tacticadii hore ee dagaal isla markaana ay qorsheysay in ay qaado weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa oo xerooyinka ciidamada ay markaasi ugu tagaan xilliyada habeenkii ah isla markaana ay mid u toogtaan saraakiisha iyo askarta ku sugan xeryaha arrintan ayaa markaasi caqabad ku noqon doonto haddii ciidanka Puntland ay ku sii nagaadaan fariisimahooda waxaana markaasi la filayaa in saacadaha soo socda ciidanka difaaca Puntland ay qaadaan howlgallo culus oo ay markaasi ku baacsanayaan kooxda Daesh isla markaana ay kaga hortagayaan weerarada gaadmada ah ay ku soo qaadayaan fariisimaha ciidanka difaaca Puntland ay ku leeyihiin buuraleyda Calmiskaad aaga toga Miraale ayaa ah goobta haatan markaasi labada dhinacba ay isku hor fadhiyaan waana aaga markaasi ilaa hadda Puntland ay ku guuleysan laadahay in ay gudaha u gasho xilli tan iyo markii uu bilowday howlgalka buuraleyda Calmiskaad ee Hilaac Puntland ay u suurtagashay in gacanta ay ku dhigto deegaano iyo saldhigyo muhiim u ahaa kooxdan balse Miraale haatan weli fooda waa la gelin layahay xilli ciidamadu ay ku mashquulsan yihiin saaridda miinooyinka ay kooxdan ku aaseen dhammaan wadooyinka sidoo kalena ciidanka difaaca Puntland waxaa markaasi caqabad ku noqotay in ay adeegsan waayaan gaadiidkooda gaashaaman waxaana ciidanka haatan ay sahaydooda military iyo rasaastaba ay ku qaadanayaan gaari dameero iyo sidoo kale dameero kaligood markaasi lagu raro iyo sidoo kale awrta oo markaasi ay isticmaalayaan Puntland ayaa waxay wadaa guluf colaadeed oo ka dhan ah kooxda Daesh xilli howlgalka haatan uu markaasi xoogiisa uu ka soconayo aaga markaasi toga Miraale waxaana lagu soo waramayaa haatan in ciidanka ay markaasi diyaargarowgii ugu dambeeyay ay galeen xilli dhawaan taliska difaaca Puntland war ka soo baxay lagu sheegay in inta la gaarin ciidda laga farxalan doono aaga toga Miraale iyo goobaha ay kooxda Daesh ay kaga sugan yihiin buuraleyda Calmiskaad malmaha ciidda haatan ka haray waxa la filayaa in Puntland ay qaado howlgalkii ugu cuslaa abid oo ka dhana kooxda Daesh saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee Africom ee markaasi Mareykanka uu leeyahay ayaa waxa duqeymo xoogani ay ka geysteen goobo ay ku sugnaayeen xubno sarsare oo ka tirsan kooxda Daesh waxaana lagu soo waramayaa in duqeymahaasi ay markaasi bartilmaameed u ahaayeen goobo markaasi muhiima Puntland war qoraal oo ay ka soo saartay ay ku sheegtay in duqeyn diyaaradeed oo culus xalay lagu garaacay toga Miraale ee buraha Calmiskaad halkaas ay ku goodoosan yihiin firxadka dagaalamayaal ka tirsan kooxda Daesh bayaan ka soo baxay xafiiska warbaahinta u qaabilsan ciidamada difaaca Puntland ayuu ku xaqiijiyay duqeynta diyaaradeed ee xalay ka dhacday toga Miraale taas oo ay fulisay dawladda Mareykanka isla markaana lagu beegsaday firxadka
kooxda daacish ee ku goodoonsan halkaasi. ilawareedyo amni oo ka tirsan Puntland ayaa sidoo kale sheegay in duqeyntaasi lala helay bartilmaameedyo sax ah oo ay isku urursanayeen maleeshiyaadka daacish kuwaasoo dhaca bartamaha toga Miraale, halkaasoo ay dhawaanahan sahan dhammaystiran ku sameeyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droneska. dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa in uu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu laabtay maanta magaalada Muqdisho isaga oo kulamo kala duwan la yeeshay waxgaradka iyo ciidanka deegaanada Raagaceel iyo Cadale ee Shabeellaha Dhexe oo uu kala hadlay sidii kooxda Al-Shabaab loo ciribtiri lahaa damacoodana markaasi loo beenin lahaa. dhinaca kale taliyaha ilaalada madaxweynaha gaashaanle dhexe Maslax Maxamed Maxamuud ayaa muddo 3 maalin ka hor deegaanka masaajidka Cali Gaduud geeyay sanad milatari oo xoogan iyo agabyo ciidan si kooxda loogula dagaalamo sida warbaahinta dawladda hore looga sii daayay. balse taabadalkeed waxaa muuqato in sahaydii ay dawladda federaal ka geysay deegaanka Cali Gaduud uu caawa gacanta ugu jiro si buuxdo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, waxaana markaasi deegaankan haatan caawa ku hoyanayo kooxda Al-Shabaab oo markaasi dagaal qaraar kadib maanta la wareegay. xilli ciidanka dawladda ay markaasi isaga baxeen guud ahaan deegaanka oo markaasi meel qiyaastii u jirto 50 kilomitir haatan ay ku sugan yihiin. inkastoo saraakiil u hadashay ciidanka dawladda ay ku goodiyeen in caawa aysan ku hoyan doonin deegaanka Cali Gaduud kooxda Al-Shabaab, haddana waxa wararku ay markaasi sheegayaan in qorshaha uu markaasi yahay in dawladdu ay dib ula wareegto deegaankaasi. badi dadka waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ay kooxda Al-Shabaab deegaanka 2 sano kadib ay duulaan 4 jiha ugu qaaday. sidaan xogteena haatan aynu markaasi ku sheegnay dawladda Soomaaliya ayaa sanad ciidan oo milatari waxa 3 maalmood ka hor ay geysay deegaanka Cali Gaduud. Al-Shabaab waxay ka war heleen sanadaasi milatari halkaasi la geeyay xilli ay bartilmaameed markaasi ka dhigteen goobihii rasaasta iyo hubka noocyadiisa kala duwan halkaasi la geeyay, waxaana isla markii ay magaalada toos u galeenba ay abbaareen goobihii u yaalay saadka milatari, waxaana taasi ay ku tusinaysaa in wada shaqayn ay jirto markaasi kala dhaxaysa kooxda Al-Shabaab xubno ka tirsan ciidanka dawladda iyo sidoo kale dadka deegaanka. haddaba haddaad nala soo gaartay ilaa dhammaadka muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa in subscribe-ka noo taabato muuqaalkana like aa saarto si dad badan uu u gaaro.